عليه أفضل الصلاة والسلام وسيلة أولاد وسيلة أولاد وسيلة عافية وبيت عافية وسيلة وبيت وحرشة وسيلة كلوميسية iyo xanaanada xoolaha taliyaha dowladda barasaabka gobolka maayirka la doortay maayir ku-xigeenka golaha cusub maayir ku-xigeenkii hore golihii deegaanka hore dhammaan bulshaweynta ka soo qayb qaadatay anigoo magacyada kale xusi ka hayn oo ciidda ka badan yihiin xildhibaanada guurtida xildhibaanada baarlamanka awooda cali wadan cadde iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh run ahaantii maanta farxad bay tahay inaan halkan soo istaago intiinaasina aad ka markhaati noqotaan xil wareejinta aan halkan ku samaynayno in badan baa maalmahan ilaahay soo idhaaheen wixii aad qabatay oo dhan ku faan qolo kalena waxay yidhaah waayo hoogo maad faanina maanta ha faanine bal wixii aad ka sheegi karto ka sheeg runtii halkan ma yaallo waxaan halkan iyo kooban kaga odhanay waxaan halkan iyo kooban kaga odhanayaa waxqabadkaygii inta hadalka kalena wii dambayn doona haddii ilaa yidhaahdo waxaan halkan ka bilaabayaa inaan marka ugu horeysa halkan uga mahad celiyo maayir ku-xigeenkaygii xogayihii golihii deegaanka ee nala shaqaynayey oo aan aad ugu mahadnaqayo oo ahaa golo aad u wanaagsan aan laga dareemin qabyaalad iyo xaafad iyo kooxaysi aan marnaba laga dareemin waxaan u mahadnaqayaa shaqaale weynaha dowladda hoose oo muddadii aanu joognay si fiican noola soo shaqeeyey si fiican noola soo shaqeeyey waxaan u mahadnaqayaa shirkadihii nala shaqaynayey ee kala duwanaa hadday noqoto ciddii noo maamuleysay sayidka hadday noqoto gsol hadday noqoto shirkadihii qashinka nala shaqaynayey hadday noqoto shirkadii kawaanka ka shaqaynaysay hadday noqoto dhammaan bulshadii Soomaaliland iyo caasimadda isugu timid nala shaqaynaysay shaqaalaha maanta aan halkan ku wareejinayaa koob shaqaalahan ugu horeynayaa waxa weeyaan 1094 xarunta ah shaqaalaha degmooyinka 556 shaqaalaha maamul daadejinta ee waashmaanada ee ka shaqeeya cusbitaalada iyo MCH-yada oo 127 ciidanka degdemiska oo gunnada intaanu siinaa 122 yihiin dadka taageerada daban ee qubanaha ee aan ku hayno caasimadda 206 ayaa u soo xaadira bishii in gunooyin dawladda hoose arkaysa dhaqaalaha markaan ka hadlo dawladda hoose arkaysa waxaanu la wareegnay 2013 January 5 baanu la wareegnay miisaaniyaddii ugu dambeysay aanu la wareegnay golihii nagu horeysay oo u mahadnaqayo waxay ahayd 24 bilyan 327 milyan 180 maanta waxay maraysaa miisaaniyadda aanu wareejinaynaa inay tahay 97 bilyan taasoo noqonaysa inay ku dhowdahay inay 5 goor laabanto 500%. run ahaantii waxyaabihii aanu qabanay markaan si guud u dulmaro miisaaniyaddaasi waxa loogu talagalay 35% inay development noqoto. run ahaantii waxaanu kala horeysiinay mashaariicii iyo milooyinkii nagu jiray iyadoo halkan uu ka dhaqaaqay taliyii ciidanka degdemisku hawshaasi oo waqti adag iyo xaalad adag 2014
aanu dhabarka u dhignay aanan u dhabar adeegnay in la aasaaso debdemis qaran oo ka bilaabma degmada Hargeysa national level la noqda. markaan qorshaha dejinay waxaa noo yimid Axmed Sawaaxili oo ka shaqaystay imaaraadka yiri qorshahana waan hayaa iyo waan fulinaynaa iyo intaasoo maayo baan ula yimid oo waa la fulin waaye ma fulinaysa ha markaan isla dhamaysanay waxaan u tagnay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo isaguna markiiba nala qaatay ay noqotay markaan degmada Hargeysa bilownayna in heer qaran lagu sameeyo sidoo taliyo halkan ka qiray degmooyinka kale kuwa loo samaynayo halkan tababarkooga iyo dhaqaalahooga iyo waxa ku baxaba si uu debdemiskaas u midho dhalo ay golaha deegaanka Hargeysa gaareen ayaanu anagu kharashkooga dusha ugu qaadan jirnay. gaadiidka debdemiska ee caasimadda ka hawlgala haday gaadiidkooga xafiiska iyo ka noqoto waa 9 gaari maanta caasimadda Hargeysa waxay leeyihiin xaruntii oo ah tii qaranka iyo 3 xarumood oo dhisan 2 xarumood oo harsanna waa u bannaan yahay dhulkoodii halkoodii laga dhisayay oo waa degmada Axmed Dhagax iyo degmada 26 Juun oo suuqa goobnimo waana adnaagteeda halka kalena. debdemiska waxaan uga faa'iideysanay inay noqdaan national emergency hawl kasta oo dhacdo oo emergency haday daadad ku dhacaan hadii ay xoolo wax noqdaan haday cid walba noqoto hadii ay baraa ku dhacaan ubadkeenu cid ka shaqeysa hawsha ka qabata waxa weeye waa ciidankeena debdemiska waa dhalinyar aanu si fiican u arbinay aabo wanaagsanna u helay oo uu mahadnaqayo Axmed Sawaaxili soo lacag badan qaata ayaa wuxuu uga soo noqday inuu debdemiska madax ka noqdo wadankiisa tabaruc ugu shaqeeyo. waxaynu halkan maanta joognaa warshadii dawladda hoose waxaanu la wareegnay gaadiidkaanu dawladda hoose kula wareegnay ee xagga dhismaha hawlaha guud waxay ahaayeen 2 cagaf oo shay wala oo arrimaha bulshada ka shaqeeya gaari siisow oo iska roga ah booyada daamurka oo booyadii daamurka shubaysay hal hugley iyo 2 iska rogo oo kira ah oo midna Allah u naxariistay uu lahaa injineerkii city injineer Ibrahim midna uu lahaa maayo ku xigeenkii hore inuu wacday qalabka aanu la wareegnay waa inta kirada ay intaas ahayd. maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa qalab iyo warshado gaadiidka aan halkan ku wareejinaynaa waxa weeyi waa iska rogooyinku waa 8 weeyi booyad intaasoo hugley bayfarti karashaki Allahumma salli ala Muhammad asfal balanki halkan waxaan aad ugu amaanaya oo jooga injineer Baashe oo ninka ka madaxda ee noo maamula halkan Baashe halkan istaag aad baan ugu amaanaya dad badani waa dhaliilaha naloo sheego laakiinse wadadu maalina waa la rubeekaya maalina way jabtaa shaqaalahaas waa shaqaalaha badan ee halka taagan iyo qalabka inta leega badan maalintii aanu xilka la wareegnay iska hoglaanto quri dhibaatada kugu tahay shirkadaha qashinku barkood waxay nagu sameeyeen inay markaan laano koodiga gawaadidii qashinka inay shaqo joojin nagu sameeyaan magaalada Hargeysana aan qashin aan ka qaadi ka weyno ay noqoto inaanu iska hogooynu soo kireysano maalintii ugu horeysay 2 gaari iska hogoodo 2 cascasa ee sunataanka ay noo yimaadeen iyo shirkadii hoostayada soo fadhiisteen taasina waxay keentay inaanu go'aan ka gaari karno inaanu wadana sameyn karno qashdaan anagu awood u leenahay inaanu goor karno. qaybtii labaad waxaanu soo iibsanay oo dalka imaaraadka kala nimid 2 sheewal grader iyo hugley oo noqonaysa qaybtii labaad. qaybtii saddexaad waxaan la nimid bulldozer baan la nimid E5 qaybtii shanaad waxay qaybtii aan Itoobiya ka soo iibsanay dadka qaar waxa u yaqaanaan qaybtii aan Itoobiya ka soo iibsanay aan soo iibsanay intaasi ba qalab kala duwan bay ahayd 2 gaari oo magaalada gudaheeda iyagana aanu ka iibsanay
intaasoo gaadiida iyo gaadiidkii haya xafiisyada oo aan maanta gumaanaan tala gelinay halkan isugu wada yimaadaan waxaanu nidhi intii aan shaqada qabanaynin halkan aad timaado waayo bayfartii iyo qaybtii shaqada ku jirtay ee ka shaqaynaysay waxay taallaa cusbitaalka agtiisii oo shaqadii bay wadaan gaadiidkii iyo degmooyinkiisoodii bay u shaqaynayaan inta qalabkii waa intii aan maanta shaqaynayn halkan hortiina taagan markaan u galo sectionka nadaafadda waxaanu la wareegnay iyada oo mashruuca BB-ga la hirgeliyey shirkado barayfada loo dhiibay dadka qaar waxay idhahdaan gacanta dawladda inay ku soo noqoto ayaa wanaagsan anu waan ammaanayaa maayar cabdikariinna kulama talinayo inuu gacanta ku soo celiyo waayo shirkadaha barayfidka ee maayar jiciiriya sameeyeen waxay kor u qaaday fayadhowrkii iyo nadaafadiiba kor u qaaday marba stage ay gaadho maynaan gaadhin halkaynu u soconay laakiinse kolba qayb halkay gaadho waxa aan ugu nimid iyadoo ay 4 shirkadood shaqaynayaan ay 16 gaari ay haystaan 24 saacadoodna ay magaalada ka baxaan 12 lowd oo qashina waxa ay maanta gaadiidka ay haystaan shirkaduhu oo ku khasabnay inay soo iibsadaan badh ool bankaanu kala hadalay oo shirkadda Kiwis iyo Tabsan ka faa'iideysteen mid laba gaari mashruuci businesska ee ay World Bank ku bixinayeen maanta waxay marayaan 70 gaari oo qashinka ka qaada magaalada Hargeysa maalintiina waxa ka baxa 140 load baa ka baxa systemka waxaanu sii develop gareynaynu ka bedelay in awal waxa la sameey jiray in gooba qashinka la isugu keeno dadkeeduna waa taqaanaa waxay yiraahdaan jin baa inagu degdegaya meesha qashinku yaalo qof uu sii daba dhigaa goobaha xasuusan kartaan waxa ka mid ah Birjeex waa goob la dhigi jiray Sheekh Shukri Xarajaadi suuqa gobanimo ee xusbiga goobahaas oo dhawaanu joojino waxaanu ka dhignay in door to door laga dhigo aqalada loogu tago weli may gaarin halkii waxa oran lahaa in halka la sii kordhiyo oo hadii shanta shirkadood wax ka badan loo baahdo iyo waxa golaha iyaga iyo maayar cabdikariin baa ku tartaaraya inay sii kordhiyaan si ay nadaafadu kor ugu kacdo nadaafadina kor uma kacayso haddaan shacbigu qayb ka noqon shacbigu hadduu tuurayo shay walba waxa weeye nadaafadi ma hagaagayso waxaana leeyahay in lala shaqeeyo maamulka dambe oo maamulka dambena ka shaqeeya qashinka waxa ay ka istiridada lagu tuuraye ka sidii aynu uga dhameyn lahay runtii qashinka intaa kala kagamaanaan harin waxa weeye dhaqaalaha soo kala dawladda hoose uu kooban yahay halkan waxa dokumentigiisu yaala istadhigii aanu ku sameynay qashinku markuu aqalka ka soo baxayo ilaa uu gaarayo in la kala saaro oo wixii recycle galaya ama dib loo isticmaal karayana meel la geynayo wixii kalena inta la aasay energy la sameynayo runtii World Bank nagala shaqeeyay halkan waxa yaala istadhigii oo dhameystiran lacag wuxuu u baahnaa ilaa 5 milyan oo dollar lacagaasna de hay'adahan ka sugeynay insha Allah ta'ala waana maamulka naga dambeeyo oo ku dabageli doonaan taasoo qaybo kamid ah ay shirkado doonayeen inay recycle-kii ka shaqeeyaan ay noo yimid oo memorandum of understanding kala seexaday oo aan halkan ku wareejin doono runtii maanta waxaan ugu talagalay khudbad badan soo jeediyo laakiin xaaladda iyo waqtiga ay marayso wax badan baan ka tagi doonaa oo waan soo koobi doonaa waxaan u gelayaa qaybta waxbarashada waxaanu sameynay siyaasadii maamul daadejinta oo siyaasad qaran ah madaxweynuhu uu saxeexay uu hogaamiyana uu yahay madaxweyne ku xigeenku siyaasadda maamul daadejinta waxa lagu soo tijaabiyay degmooyin badan baylood baa laga dhigay degmada Hargeysa maadaama ay degmada ugu ballaaran tahay waxaanu ku leeyahay sanadkii 2018 ilaa 2020 intaaba oo ka shaqeynay waxaanu la wareegnay
48 iskuul run ahaantii waxbarashada iyo xaaladdu aad bay u dayacnayd waxaananu ka qabanay waxyaabo badan waayo badnida iskuullada ayaa kalifaysa inay dhibaato badani ka taagan tahay dayactir 23 iskuul baan ku sameynay dhismadeed 3 iskuul baan ku sameynay dayactirka deegaanka dugsiyada labaan ku sameynay kordhin dhismayaal fasalo 8 baan ku sameynay iskuul dhismaha musqulaha maadaama aanu taanu la wareegnaa ay tahay dugsiyada dhexe oo dhalinyartu xilligii ay ahayd ilaa 12 jir ilaa ay noqonaysay xilligaasi inamada iyo hablahaba waxaan u sameynay dugsiyo iyagoo hablahana qol nasasho oo aanu u sameynay dugsiyada intii aanu ka shaqeynay dhismaha falxalo casriya oo maadaama xaaladii corona ay jirtay dhismaha farsi waxaan ugu sameynay dhismayaashooda waxaan ugu sameynay dayactirka falxalo ay ku falxashaan ciyaalkeena iskuulka dhiganaya kuraas iyo miisas waxaan u sameynay 1900 iyo 780 set oo intaasoo mid kastaba set kastaba ay fadhiisanayaan 3 arday ayaan u sameynay oo dugsiyada aanu ku qalabaynay bixinta waxaanu sameynaa guno kharashaad light biyo iyo in qashinka laga qaado dhammaantoodba intaa waxaa ka fakaraysa dawladda hoose hakaysa dhaqaalaha ku baxa had iyo jeer waxaa la moodaa in amba hay-aduhu keeneen ama meel kale laga keeno waa cashuurtii dadka laga qaaday dhaqaalaha dugsiyada ee maamul daadejinta boqolkiiba 70 dawladda hoosaa bixisaa boqolkiiba 12 waxaa bixisaa hay-adaha boqolkiiba 18 waxaa bixiyaa international community-ga bixiya boqolkiiba 12 international community-ga bixiya boqolkiiba 18 waxaa bixisaa dawladda dhexe oo wasaaradda wasiirkeedu halkaas soo fadhiyo runtii markaan qiyaaso sanadkan oo qura waxbarashada iyo caafimaadka waxa ugu jira miisaaniyadda dawladda hoose $1 milyan marka ay 10 milyan tahay dawladda hoose budgetkeedu 3 milyan iyo badh ay tahay developmentka laga shaqeynayay marka $1 milyan laga shaqeeyo caafimaadka iyo waxbarashada intii kale development la sameynayay waa garanaysan qiyaasta u haraysa waxaan u gelayaa sektorka caafimaadka waxaanu la wareegnay 32 MCH iyo 10 healthpost waxaanu ku kordhinay muddada sanadka iyo barkeenu haynay inaanu sameyno 7 MCH oo cusub oo ay 3 magaalada gudaheega yihiin 4na dibadda yihiin dhismaha huga caafimaad inaanu ku kordhinay 3 hadda dhismahooguna uu socdo 3 MCH oo cusub waxaanu ku kordhinay degmada Ibrahim Koodbuur 1 MCH baanu ku kordhinay maadaama magaaladu meelaha u fidaysa ka mid tahay degmada Axmed Dhagax xagga dusha waxaanu ku kordhinay 1 MCH degmada Axmed Macalin Haarun oo iyadna koonaha bariya magaalada u fidaysa MCH si caafimaadka loogu sameeyo waxaanu sameynay cusbitaalo reference hospital uu ka mid yahay ka magaalada Dacarbuluq had iyo jeer waxa ka dhaca shil baa ka dhaca wadada inta u dhaxaysa si inta berbera loo qaadayo amba Hargeysa loo soo qaadayo dhibaato badan bay dadku ku tahay degmada Dacarbuluq waxaanu ka dhisnay cusbitaal kaasi oo dhismihiisu uu dhameystiran yahay waxaanu dayactirnay MCH-yadii iyo hugihii caafimaadka noqonayay degmada oo dhan inteeda badan waxayna soo maray 2 sano oo xaalad adag oo ah xanuunkii safmarka ee koronuhu soo maray taasi dawladda hoose hakaysi waxay noqotay institutionka ugu dadaalka badan leh ee wax ka qabtay halkaa waxaa idinka muuqda gaadiidkii aan ugu talagalay hadday noqoto ambalaasyadii qofku markuu xanuunsado qaadayay cisbitaalka iyo halka loogu talagalay geynayay
hadday noqoto hadday geeri timaado gawaadhidii meydka lagu qaadayey waxaan aad ugu mahadnaqayaa shaqaalihii u tababarnaa ee reerkoodu xitaa kaga go'ay muddadaa uu xanuunku xoogga ahaa inay habeen iyo maalinba meyd kastoo soo dhaca ay aasaan ay sameeyaan xaafadoogina qof kasta la yidhaha qof dhintay buu qaado corona u dhintay aqalkiisii waxaa la odhanayaa dee yaan noo soo gelin dhabar adaygoogana aad baan ugu mahadnaqayaa